qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle oo aan maanta makarafoonka la dhexmaray ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay mooshinka xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka keeneen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble waxaana qaybaha bulshada ay sheegeen in xilligani ay dan ugu jireen bulshada ku nool Hirshabelle in qalaanqul siyaasadeed oo ka dhex bilowdo dowlad goboleedka Hirshabelle haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka aan makarafoonka la dhexmaray wallaahi walaalow horta sideeda waxa khilaaf la yiraahdo cidna uguma jirto dan cid ay ugu jirtaa ma jirto waxaan leeyahay waxdan ay uguma jiraan ummadan dhibaataysan abaaruhu hayaan qolaaduu hayaan khilaaf maanta dan uguma jiro waxaad ogsoontiin goboladan khilaaf wuxuu ka reebay asaagood goboladii asaagooda ayuu ka reebay waxaan kula talinayaa madaxda golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda ama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan u dhiibnay hoggaan waxaan ugu talagalnay inay nagu hoggaamiyaan yay abaalkeena ka dhigin inay isku qabsadaan oo la isku khilaafo wixii ayaga noo xalliya aan niri abaalkeena yay ka dhigin xog ururinta ay saxaafaddu ururinayso waxa ummadda shacabku ummadda Soomaaliyeed ee Hirshabelle ay ka qabto xildhibaanada wada mooshinka xildhibaanku mooshin waa keeni karaa laakiin wada sharci uu ku keeni karaa inaan wax dumina waxa nooga qurux badan waxa noo dhisan inaan nidhaahdo halkan ay dari ku leedahay ka liidataaye aan ka wada saxno taasaa nooga qurux badan sharciguna waa fasaxaya oo dawliga ah diiniyana way tahay walaalahan waxaan leenahay waxaanay mooshinka diyaarinayeen inay meel walba la ordayaan inay joojiyaan ay tala midaysan la yimaadiin inay la yimaadiin shacabkooda ku qanciyaan waxa halaysan haddii la toosiyo wuxuu way soconayaan laakiin waxa dhisan haddii la burburiyo jugjug meeshaad ka soo bilaabay noqonaysaa waxaan leeyahay oon talo ku siinaya xildhibaanada inay ka waantoobaan barnaamijka ah mooshin baan diyaarinaynaa looma baahno xilligani wax la dumiyo looma baahno xilligan in shacabka la kiciyo waqtigani waxaa loo baahan yahay war maxaa naga qaldan maxaa noo samaysan waxa naga qaldan sideen ku sixi karnaa sideesan macnaha horumarka ku gaari karnaa talada muhiimka oo aqligu keenayo diinta islaamku qabtaana taa way shacabku waxdan ugu jirto malaha wax mooshin la yiraahdo oo saacadan la keeno sababtoo shacabka asaga baahan asaga burbursan asaga macnaha xaaladiisa ilaahay ogiyo biyo dhaamin waxba loo sameeyo maanta marka in xabad loo qaato ama maxaa la yiraahdo mooshin la idin keena iyo hadda soo bilow waxdan kuma jirto maanta asagoo 4 bilood jiro aan wali bish sanad aan gaarin inaad tiraahdo mooshin idinka keenay iyo waa idin ridaynaa xoogaa waxay ila tahay in laga qurux badan yahay hal la siiyo fursad madaxweynaha uu ku hadlo wax ku doorto waxna ku dalbado maamulka Hirshabelle mooshinka hadda ay keeneen xildhibaanada qaar wax dan oo ugu jiro dadka degan Hirshabelle oo ugu jiro dan ma jirto waayo annagu bilaawana wax qabad ayaan doonaynaa in shacabkan baahida iyo dhibka iyo abaaruhu hayaan in la hormariyano doonaynaa waxaan leenahay maamulka waa urdun yaan laga hortagin xildhibaanada waxaan u jeedinaynaa in ay ka tanaasulaan hawsha ay ku jiraan danta shacabka eegaan xildhibaanada shalay ayaga doortay annagana waa ku raacno waa ku taageersanay maanta waxay noo keeneen inay micnaha ay dhaa madaxweynaha albida ay dhibaatintay micnaha ay dalkii dadka ay dhisi lahaayeen intay walaalood aadi lahaayeen ay u gurman lahaayeen dhiigga baxaayo rifaadka jiro baahida jirto oo leeyahay jirto ay ka qayb galaan waxay keeneen inay haddana ay colaad iyo qabiil iyo qorshooyin aan loo baahnayn waxa looga baahan yahay inay cadaalad tagaan ee walaalood ay heshiisiyaan maahane inay Jowhar ka balayaan madaxweynaha rideena ay dhahan anaga ku maraacsan shacabka mooshinka xildhibaanadani ay keeneen ayaa ka dambeeyay kadib markii madaxweyne Cali Cabdillaahi Cosoble uu ku dhawaaqay toddobaadkii tagay golihiisa wasiirada waxaana dadka siyaasadaha falanqeeyo ay sheegayaan in mooshinkani uu salka ku hayo siyaasado kala duwan oo isbiirsaday Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.